السلام عليكم waxaan sameynaa haduu leeyahay waxa la yiraahdo system login macnaheedu yahay wax walba oo systemkaaga sida routerka ama switchka ka dhaca in lagu kaydiyo server login waxaan sameynaa marka waxaan adeegsan doonaa router switch waxaan u baahanahay server aan u baahanahay kadib waxaan sameynaa connection aan isku xiraynaa serverka waxaan siin doonaa 192.168.1. siin doonaa 2 iyadana gateway waxaan siin doonaa 192.168.1. okay kadib waxaan ku dhufanaa routerka waxaan leenahay config ethernet marka on ka dhig 192.168.1. okay kadib waxaan tegaynaa serverka sidaan waxaan siin doonaa IP address iyo gateway aan soo siin doonaa 192.168.1.2 IP addresskiisa gateway waxaan siinaynaa gateway routerka 192.168.1.1. okay kadib waxaad tegaysaa routerka waxaad abuureysaa marka waxa la yiraahdo trap ama inuu login wax walba login ah inuu routerka ku save gareeyo marka waxaan tegaynaa halkan waxaan leenahay computer kadib waxaan leenahay login on wax walba login on lagu sameeyo waxaa ku save gareysaa IP address la yiraahdo 192.168.1.2 waxaan raacinaa code kale oo la yiraahdo trap ama debug level ama severity oo ah 7 level ayuu leeyahay marka 7 level raacin marka hadda waxyaabaha aan suurtagalka ah waxaa kamid ah override console host markana waxaad adeegsan doonaa waxa la yiraahdo trap inuu soo qabto wax walba oo qof walba oo soo galo systemkan iyo wuxuu sameeyay in la soo qabto marka waxaan leeyahay trap waxaan leeyahay debugging okay sidaas waxaa ku samaysa marka waxaad abuurtay in wax walba oo ka dhaca halkaas in lagu save garay okay serverka kale marka waxaad tagtaa service waxaa leeyahay system login waana saaran meeshaan okay waana ku yahay marka waxaan tegaynaa routerka kusoo laabo wax samee marka computer interface gigabyte ethernet la yiraahdo 0/0 no shutdown okay waxaan jeegaa hadana some interface state xaaladda isweys la socdo dad fiirin markaan ka bax okay ayaan ku sameeyay marka serverku soo daahaya ko fiiladii koowaad waa taasaa bedel uu sameeyay iyo xaaladii la bedelay okay soo baxay. Assalaamu calaykum.